Nafiso Cumar waa inan yar oo 12 jira waxa laga dhaxlay meedkeedii isla gurigii ay ku noolayd iyadoo wulibana lagu dhaxriday digsi. Nafiso Cumar oo ahayd inan yar oo 12 jira oo ku noolayd Muqdisho, qoyska ay ka dhalatay Nafiso waxa ay sheegeen inay raadinayeen muddo 2 cisho ah. Daawade muuqaalkan waxa idin wadaagaysa waa anigoo ah Nadra Saciid. Nafiso Cumar waxa ay ku noolayd Muqdisho waa inan yar oo 12 jir ahayd. Ilaahay ha u naxariistee. waxa la waayay muddo 2 cisho ah. Qoyska ay ka dhalatay Nafisa waxa ay deydayeen muddo wulibana ay ka soo wareegtay saacado aad u badan. Qoyska inantan yar dhalay waxa ay ku faafiyeen dhammaanba deydaygeeda baraha bulshada iyagoo wulibana Muqdisho dhexdeedana ka deydayay. Laakiinse saacado kadib arrinkii wuu isbedelay. Nafiso Cumar waxa laga dhaxlay gurigii ay ku noolayd meedkeedii iyadoo lagu dhaxriday wulibana digsiga cuntada lagu kariyo. Run ahaantii waa arrin argagax leh, mucjisadeedana wadata dhammaanba ku faaftayna social media qof kastana isweydiinayo dhacdadani sidii ay ku dhacday. Laakiin wali cid og ma jirto xaqiiqada dhabta ah ee ku duugan dhacdadan iyo wulibana dilka loo geystay marxuumada Nafiso Cumar sida ay ku dhimatay ilaa iyo hadda cid ogi ma jirto. Kaliya waxa la ogaaday oo laga warhayaa in meedkeeda laga dhaxlay isla gurigii ay ku noolayd. Waxa ay sheegeen qoyska ay ka dhalatay Nafisa in ay guriga ur badan qabsatay joogi kar waayeen urta qarmuunkeeda. Kadib waxa ay isku dayeen in ay raadiyaan urtaasi meesha ay ka imanayso. Ugu dambayna waxa ay ka war heleen meedkii Nafiso Cumar oo lagu dhaxriday digsi weyn. Dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday Muqdisho ilaa iyo haddana wali waxa la isweydiinayaa sidii ay u dhacday iyo wulibana cidii dishay Nafiso Cumar. Daawade fikirkaaga ka dhiibo sidee ay kula tahay arrinkan maxaad se u malaynaysaa? Run ahaantii tani waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan oo uu ka damqanayo qof kastoo dameer leh kana cadhoonayo dilka loo geystay Nafiso Cumar. Waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka muuqaalkan.